asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal meel walbaad ku sugantii kusoo dhowaada channelkeena Hogan 24 Media waa anigoo Cabdulle Macalin Maalto. Xuska Halloween-ka ayaa markii ugu horeysay si weyn looga xusay dalka Sacuudiga iyadoo dadweyne badan ay ka soo qayb galeen xafladda ka dhacday caasimadda dalkaasi Riyaad. Ujeedada xafladdan ayaa ahayd in la soo bandhigo muuqaalo laga naxo iyadoo ay soo bandhigeen dadka deegaanka ku ah iyo kuwa Sacuudiga u dhashay, sidoo kalena la abuuro jawi xiiso leh waa sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dowladda Sacuudiga. 31 bisha Oktoobar ee sanad waliba dadka ku nool wadamada reer galbeedka waxay u dabaaldegaan wax loo yaqaan Halloween. Waxaan filayaa inaad aragteen caruur si cabsi leh u labisan oo wadooyinka lugeynaya. Halloween-ka dadka u dabaaldega waxa ay sameeyaan khiyaanooyin kala duwan sida in la is cabsi geliyo, filmaan cabsi lehna la daawado, iyagoo sidoo kalena dadka u dabaaldegaya dhacdadan ay soo xirtaan dhar aad u cabsi badan. Haddaba su'aashu waxay tahay waa maxay waxa lagu magacaabo Halloween? Halloween asal ahaantiisa magacan waxa uu ka yimid All Hallows iyadoo macnaheedu yahay habeenkii barakeysnaa. Dadka Kirishtaanka ah waxay aaminsan yihiin inuu habeenka yahay habeen barakeysan, sidoo kale waxay ugu yeeraan All Saints Day oo iyaduna ay xusaan 1 November ee sanad kasta, iyagoo waliba markaas ay ugu duceynayaan guud ahaan dadkoodii shuhadada ahaa ee dunidan faaruujiyay. waa sida iyagu aaminsan yihiin. Haddaba Halloween-ka iyo Samhain-ka farqiga u dhaxeeya waa maxay? Dadkii hore ee cawaanta ahaa ee Yurub ku noolaa waxay aaminsanayeen adduunkan aan ku noolnahay iyo adduunka ruuxaniga ah ee aakhiraadka ah inaysan wax farqi aad u badan aysan u dhaxayn. Sidoo kale waxay aaminsanayeen xilliga ay u dabaaldegayaan waxa loo yaqaan Samhain-ka oo ahaa dhamaadka xagaaga oo uu soo galaya jiilaalka. waa xilli Yurub oo dhan u dabooli jiray gudcurka ama madowga, waxayna xilligaas aaminsanayeen in dad badan ay geeriyoon doonaan waliba xilliga madowga ama gudcurka. Sidaas darteedna waa xilliga ay u dabaaldegaan Samhain-ka, waxayna aaminsanayeen dadka iyaga ka geeriyooday ruuxdooda inay dib ugu soo laabanayso adduunka. Sidoo kale waxay aaminsanayeen inay u kaxeynayaan halkii iyagu ka imaadeen waa aakhire, ama sidoo kale ay u geysanayaan dhibaatooyin kale. waxayna shidi jireen dab aad u weyn iyagoo wajiyadoodana ay soo gashan jireen waxyaalo aad u cabsi badan si aysan u aqoonsan ruuxdaas dunida imaanaysa wajiyadooda. Balse maantay waxaa wadamada Yurub ka jira dhaqankaas oo casri ah, waxaana loo yaqaanaa Halloween. Waqtiga la joogo waxaad ku arkaysaa warbaahinta reer Yurub iyo kuwa kale ee caalamka iyaga oo ka hadlaya munaasabadan, balse waxaa intaas dheer in dadka ku nool Yurub iyo Ameerika ay badankooda tukaamadooda ay yaalaan waxyaalo cabsi badan leh oo isugu jira dhar iyo alaabo kale, iyadoo safaf loogu jiro si loo iibsado alaabahaas. Waxaa sidoo kale arkaysaa caruurta oo habeenada 31 Oktoobar iyo 1 November in ay albaabada dariskooda ah ay soo garaacayaan iyagoo wajiyadooda ku soo xiranayo waxyaalo qofka cabsi gelinaya, waxayna weydiisanayaan waxyaalo macmacaan ah. Haddaba waxay aaminsan yihiin inta lagu guda jiro habeenada Halloween-ka in gudcurka ama madowga in ay ku soo wada degaan shar oo dhan sida shayaadiinta noocyadooda kala duwan iyo sixirka iyo waxyaalaha la mid ah. Waxayna sidoo kale aaminsan yihiin in bisidaha madow ay yihiin kuwa adduunkan ku faafinaya sharta oo dhan. Haddaba haddii aan eegno dhinaca diinta Islaamka iyo waxa ay ka qabta arrimaha noocan ah ayaa waxay tahay mid iska cad in waxyaabaha la sameeyo dhacdadan ay yihiin ficilo shirki ku dhisan. Taasna waa ognahay booska ay ka joogto diinta Islaamka. Culimada Islaamka ayaa ku tilmaamay xuskan caado shaydaan oo khilaafsan diinta Islaamka, aysanna banaanayn in laga qayb qaato, iyagoo xusay in Islaamka uu leeyahay 2 ciidood wixii ka baxsanna ay yihiin kuwa Islaamka uusan ogolayn. Dad badan ayaa ka qayb qaata dhacdadan iyagoo aan wax fikir ah ka haysan taariikhda iyo macnaha ka dambeeya. Haddaba waalidka muslimka ah ayaa laga doonayaa inay caruurtooda ka weeciyaan dhacdooyinka noocan ah. Waxaana halkaas inoogu eeg barnaamijkeennii oo ay idiin soo gudbinayay anigoo Cabdulle Macalin Maalto. Haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan like saar, subscribe-na dheh adigoo gambaleelka furanaya si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelina. Hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo sheer garanaya muuqaalkan. mahadsanid.